kulanti wacan daaqwadayaal ku soo dhawaada warkii wadaagsin oo aan hadahan oo kale idiin soo tabin jirnay waa 16 bisha July sanada 2019 qodobada ugu doorka roon ee aan idiin haynana waxaa kamid ah Somaliland oo la hoos keenay Puntland madaxweynaha Puntland Dani oo hanjabaad kulul hawada u mariyay ra'iisul wasaare Khayre qaramada midoobay iyo Axmed Madoobe oo soo saaray digniin ku aadan doorashada ka dhacaysa Jubaland golaha wasiirada Somaliland oo kulan degdeg ah ka yeeshay xiisada dawladda federaalka Soomaaliya kooxda al-shabaab oo sheegtay in ay ciidamo badan oo Itoobiyaan ah ku qarxiyeen gobolka Hiiraan daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee aan idiin hayno haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan fadlan daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay subscribe saaro channelka gambaleelkana daaro si ay ku soo gaaraan wax walba oo aan soo galno channelka madaxweynaha Puntland Dani oo ka hadlay munaasabad lagu daafurayay duulimaadyada Ethiopian Airlines ay ka bilowday magaalada Garowe ayaa digniin adag u diray dad uu sheegay inay kicinayaan dhalinyarada Puntland si ay isaga hor keenaan shacabka iyo maamulkiisa Dani ayaa tilmaamay inay jiraan dad doonaya in ay wiiqaan jiritaanka Puntland iyagoo u soo maraya kicinta dhalinyarada isagoo ka digay in dhalinyarada loo adeegsado burburinta Puntland hoggaanka ayay uga duwan tahay Soomaaliya inteeda kale waxaan ka digayaa dadka daneynaya inay bulshada hoggaankeeda wiiqaan oo dhalinyarada ku kiciyaan waxaan qirayaa in ninkii sameeyay heesta ku dayo Puntland oo wax wanaagsan sameeyay waxaan leeyahay nagu dayda ma aha in dadka la hareer maro oo waxaan jirin la akhriyo hayaankeenu waa inuu qeexan yahay waxaan cadeynayaa in reer Puntland aysan cidna ku ogolaaneyn inay nidaamkeeda burburiso ayuu yiri Dani waa markii ugu horeysay ee madaxweynuhu uu sheegay in faragelin lagu hayo maamulkiisa wuxuuna hadalkiisa ku soo aadayay xilli ay dhawaan Puntland ku eedeysay ra'iisul wasaare Khayre oo booqanaya waqooyiga magaalada Gaalkacyo inuu baal maray bahmaamuuska ay Puntland u diyaarisay waxaana xilligaasi eedeynta Puntland laga dheehan karay inay ka xumaatay dhalinyaro badan oo Khayre uu khudbad ugu jeediyay waqooyiga Gaalkacyo Somaliland oo qodob xasaasi ah u daba fariisanaysa maamulka Puntland ganacsatada reer Somaliland ee xoolaha u dhoofiya dalalka Carabta ayaa sanadkan wajahaya caqabado iyo cadaadisyo hor leh Somaliland ayaa culays xooggan kala kulmaysa dalka Cumaan taas oo sharuud uga dhigtay xoolaha loo dhoofinaya inay soo maraan ganacsato iskaashato reer Puntland iskaashatada xoolaha dhoofinaysa ee reer Puntland ayaa dadaalo badan kadib waxay ku guuleysteen sidii ay kooto uga xiran lahaayeen xoolaha loo dhoofiyo dalka Cumaan talaabadan ayaa waxay ganacsatada dekada barbada ka dhoofin jiray xoolaha ku qasbaysaa inay soo maraan iskaashatada reer Puntland oo ay u daba fariistaan xoolaha ay u dhoofinayaan dalka Cumaan ganacsatada Somaliland ayaa markii hore talaabadan ku gacan sayrtay inkastoo oo markii dambe ay ku qasbanaadeen inay ogolaanshiyaha lagu dhoofinayo xoolaha Somaliland ay ka soo qaataan iskaashatada maamulka Puntland Somaliland ayaa bil walba xoolo kumanaana u dhoofisay dalka Cumaan isla markaana waa suuqa saddexaad oo u dhoofisay xoolaheeda golaha wasiirada ee Somaliland oo kulan degdeg ah ka yeeshay xiisada dawladda federaalka Soomaaliya golaha wasiirada ayaa shalay kulan aan caadi ahaan yeeshay kaasi oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Somaliland ayaa waxa laga hadlay xiisada siyaasadeed iyo dhaqaale ee kala dhaxaysa dawladda federaalka golaha ayaa si weyn u cambaareeyay weeraro ay sheegayso in dawladda Soomaaliya ku hayso Somaliland kuwaas oo ay ku carqaladaynayso dhaqaalaha Somaliland waxaana sidaas lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada wuxuuna u dhignaa sidaan kalfadhi aan caadi ahayn oo ay galuhu wasiiradu yeesheen maantay oo uu shir gudoominayay madaxweyne Muuse kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa lagu lafaguray weerarka siyaasadeed iyo dhaqaale ee maamulka Muqdisho ku hayo Somaliland dawladda Somaliland waxay si ballaaran uga mahadnaqaysaa dawladda boqortooyada talaabada geesinimada leh ay ka qaadatay dejinta markabkiisa iyo xoolaha ka dhoofay Somaliland kuna garowsatay muhiimadda isu socodka ganacsiga labada dal ugu dambeyntiina goluhu wuxuu warbixin ka dhageystay wasiirada iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo horumarinta maaliyadda qaramada midoobay ee madaxweynaha Jubaland ayaa ka digay in wax faragelin ah lagu sameeyo doorashada Jubaland ee dhawaan dhacaysa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Mr. Iswan ayaa ka warbixiyay safar uu ku tagay magaalada Kismaayo shalay iyo kulamo uu halkaas kula yeeshay madaxda Jubaland Iswan ayaa sheegay inuu la kulmay madaxweynaha Jubaland guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubaland iyo xubno kale oo ay kamid yihiin xubnaha labada aqal ee federaalka ee ka soo jeeda Jubaland wuxuu ka tacsiideeyay weerarka ka dhacay magaalada Kismaayo ee sababay dhimashada dadka tirada badan iyo dhaawaca isla markaana ay sheegatay kooxda al-shabaab Mr. James ayaa sheegay in qaramada midoobay oo soo joodinayso in doorashooyinka Jubaland waqtigooda ku dhaco isla markaana waxa uu ka digay in faragelin nooc kasta oo ay tahay lagu sameeyo doorashada Jubaland ee dhacaysa bisha Agoosto doorashada Jubaland waxa isku haya dawladda federaalka Soomaaliya oo doonayso inay maamusho iyo Axmed Madoobe oo diidan haatan Hiiraan faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxay qarax khasaare geystay oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay
qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. qaraxan oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa la sheegay in lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM xilli ay marayeen deegaanka halgan ee gobolkaasi. ciidamada la qarxiyay ayaa ku sii jeeday saldhig ay ku lahaayeen deegaankaasi sida ay xaqiijiyeen ilo deegaanka. dhinaca kalena al-shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi ayaa sheegay in qaraxu aheelay mid ka mid ah gaadiidka dagaal ee ciidamada Itoobiya. sidoo kalena waxay sheegeen in qaraxaasi ay waxyeello iyo dhimasho dhaawac ay ka sugaarsiiyeen ugu yaraan 20 askari oo ka tirsan ciidamadaasi sida ay hadalka u dhigeen. weli ma jira wax hadal ah oo ka soo baxay taliska AMISOM oo ku aadan qaraxan. al-shabaab ayaa inta badan weeraro dhabogal ah ku qaaday ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika xilliyada ay iskala kala gooshayaan gobolada dalka. daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa ee warkeena. inta aan warkaan iyo war kale oo ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.